ayaa soo badanayay sanadadii u dambeeyay halkan oo ah dekada uu kalluunka ka soo dugo kalluumaystaduna ay ka shiraacdaan marka ay u kalluumaystayaan xeebaha kala duwan ee dalka ayaa waxa ku xidhan dooyo aad u tiro badan waxaad arkaysaa inay mar walba ay soo kordhiso tirada dadka ku soo biiraya dhinaca ganacsiga kalluunka waxa sidoo kale taasi barbar socota kheyraad aad u tiro badan oo badeena ku duugan kalluumaystadu waxay qabaan in waqtigan ay soo saaraan kalluun aad u tiro badan balse aanay haynin suuqgeyn rasmi ah iyagoo xukuumadda Soomaaliland oo soo jeediyay inay dawladaha jaarka ay ugu horeyso waddanka Itoobiya ay Soomaaliland xiriir la samayso sidii lagu iibgeyn lahaa kalluumaysiga kala duwan ee Soomaaliland waxa sidoo kale ka hadleen kheyraadka kale ee badda ku duugan iyo waliba habka looga faa'iideysan karo dhinaca kalluunka kheyraadkeena badda wuu buuxaa oo isagoo aan dhowr nooc u kala guranno wuu buuxaa uu dihin yahay laakiin caqabadaana hortaagan waxay ka mid yihiin mar walba kalluunka waqtiga uu marayo baddii aan ka soo helayno waxa la leeyahay ganacsatadayna yaryar ee aan iyaguba annaga wax yarna dhaamata marta meel ay geeyaan ma hayaan iminka annagu waxaan dawladda ka dalbanaynaa in ay Itoobiya oo kale xagga jaad baa imika ka yimaada xagga lacagtu inaga tagayso in kalluunkii lagu bedelo kii ganacsadaha markuu talaagadii yaraa ka buuxsamaan ee hoteelkii talaagadii yaraa ka buuxsamaan kii Hargeysa ka ganacsanaya talaagadii ka buuxsamaan xagee la geynaya waa in badda lagu shubo oo lagu celiyo ayaa caqabadaha horta waxyaalaha ugu waaweyn ay tahay iyo suuq geynta marketingkii halkan kaydaan wax dhigano oo la oran karo oo nagu filan ma hayno waa inta ay fair fish teamka dawladdu maamusho kaydkaasna kayd wax qaadayaba shan laash baa buuxinaya oo kaliya gaadiidkiina dadkiina way imika inta badan way wada fahmeen badii waxay soo wada geliyeen gaadiid aad u badan laakiin se ma hayaan meeshii waxaan kalluunkan laga keena badda la geyn lahaa gudoomiyaha jaamacadda culumta badda iyo kalluumaysiga ee magaalada Berbera Professor Cabdiqani Maxamed Khayre ayaa waxa uu si qoto dheer u faahfaahiyay kheyraadka ku duugan badda Soomaaliland oo gaadhaysa ilaa 850 kilomitir isla markaasna ka mid ah xeebaha ugu dheer ee ku yaala wadamada Geeska Afrika waxa uu si guud uga warramay bal kheyraadka laga heli karo badda iyo waliba sida ay Soomaaliland uga faa'iideysan karto horta badden waa xeebta ugu dheer ee 850 kilomitir ah resource-ka ku jira waa resources aad u fara badan hadday noqon lahayd kalluunka ku jira waxa lagu qiyaasaa 40,000 ilaa 50,000 oo tan ayaa laga soo saari karaa sanadkii marka aad eegto haddii la eego 40,000 oo tan halka haddii loo bedelo kiilo waxay noqonaysaa 40 milyan oo kiilo halka kiilo haddii $2 lagu dhufto waa 800 milyan miisaaniyadda aynu haysano labanlaabkeed baan sanad kaliya ku soo saari karayna taasi waxay ku tusinaysaa kalluunka ugu noocyada badan ee ugu qaalisan maanta ee laga helo waddamadeennan Africa East Africa la yiraahdo waxa weeyaan 13 nooc ee ugu qaalisan baa ku jira taasi waxay ku tusinaysaa marka qaran ahaan inay nahay waddan qani ah oo ku daray in ay tahay badda magaalada Berbera marin ay maraan maraakiibta waaweyn ee badeecadaha sida ee u kala goosha wadamada Geeska Afrika iyo wadamada kale ee adduunka taasi oo laga sameyn karo dhaqaale badan sida uu sheegayo faa'iidada weyn ay leedahay baddu waxa la yiraahdaa bankaris shalayna baarlamaanka waan kala hadlay bankaris haddii la sameeyo meelo laga apply gareeyo oo laga supply gareeyo shidaalka maraakiibta waxa mara 50,000 ee markabada ugu waaweyn waxaana la yiraahdaa VLCC waa vessels liquefied crude carriers ka la yiraahdaa waa maraakiibta u baahan in shidaalka laga iibiyo biyaha laga iibiyo cuntada laga iibiyo xoolaha laga iibiyo khudradda laga iibiyo crew aynu shaqaale saarna maraakiibta inooga shaqeeya oo taqriiban haddii average la soo qaado markab walba 4 haddaynu saarno tira ka badan 300,000 oo qof baa inoo noqonayo badmaaxin Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud